السلام الله عليكم ورحمته وبركاته دمانتين وان idin salaamayna maanta insha Allah ta'ala muuqaalkan waxaan ugu soo gudbinaynaa internetka iyo su'aalooyin ku saabsan su'aalooyin xasaasi ah oo ku saabsan internetka kaasoo inooga jawaabi doonaan labada nin ee geesahayga kala fadhiya haddii aan ku hormaro Al-Aamiri waxaan ku weydiinayaa walaal faa'iidooyinka ay leedahay internetka adigoo noo soo gaabinaya bal wax nooga taataabo internetka waqti sida wada ognahay waxaan dhihi karnaa labada dhinac waa loo adeegsan karaa si fiican waa loo adeegsan karaa si xun waa loo adeegsan karaa haddii xogaa wax yar aan ka taabto qaabka wanaagsan oo loo isticmaali karo iyo faa'iidooyinka uu leeyahay koow waxaa ka mid ah internetka inuu yahay jaamacad goob waxbarasho meel wax badan lagu barto internetka hadaa fiirisid wax walbo cilmi walbo aqoon walbo aad raadinaysa maanta waad ka heli kartaa waxay ku qaadanaysaa daqiiqado yar oo aad ka raadiso bis waad soo saari kartaa wax baa ka baran kartaa marka taas waa mid aad u weyn oo dadkii naga horeeyaysan haysan anaga aan haysano fursad ay tahay wax laga baran karo in internetka wax laga baran karo tan labaad ee internetka iyo social mediaha waa goob wacyigelin lagu sameyn karo oo dadka wax lagu sheegi karo oo si fudud dadka lagu gaarsiin karo caalamka daafaha qof meel buu joogo halkan adigoo fadhido ayaa waxaad awood u leedahay inaad dadka wax u sheegto dhammaantoodana ay wada gaaraan marka taasna waa mid waxaan dhihi karaa fursad dadkii hore aysan haysano anaga aan haysano waana mid wanaagsan oo si fiican hadaan u adeegsano bulshada wax badan uga bedeli karno tan u dambeeyana aan kusoo gabagabeynayo internetka iyo social media waxaan dhihi karaa waxa uu noo fududeeyay in dadkii isku soo dhawaadaan asxaab fara badan la yeesho asxaab caalam kala joogaan oo dadka meel kala joogaan inaad isbarataan aqoon weydaarsi sameysaan wax kala faa'iidaan isku xiriirtaan isku soo dhawaataan waagii hore waxay ahayd dadka inaad intaasoo mayl soo socoto ayaga raadiso u tagto laakiin hadda khadka iyo Facebook iyo meel walba ayaad kala xiriiri kartaa qof meel kala jooga halkaas ayaa macluumaad kala qaadan kartaan isfahmi kartaan isbaran kartaan noloshana saa isku soo dhawaan kartaan marka intaas ayaan kusoo koobaya waxaa leeyahay social media waxyaabo badan oo fiican uu leeyahay oo noloshana bedeli kara oo bulshada bedeli kara marka laakiin anaga waa inaan si fiican u adeegsanaa haddaan intaan kaga soo baxno walaalkay Al-Aamiri oo noo gudbo walaalkay iga fadhiya gacanta bidixda Zuhali walaal waxaan ka codsanayaa inaad si yar oo kooban bal inaad wax yar nooga tilmaamtid ahmiyadda ay leedahay internetka dhibaatooyinka ay leedahay internetka internetka waa aalad laba af leh macnaheedu wuxuu leeyahay sida walaalkan Al-Aamiri sheegay dhinac wanaagsan oo loo isticmaalo sidoo kale wuxuu leeyahay dhinac xun haddii aan dul taagno dhibaatooyinka uu leeyahay wax ka mid ah intuu kow inuu yahay meel waqtiga lagu dilo oo waqtiga qaaliga ah oo qofka haysto waxaad arkaysaa qof saacado badan iskaga diray oo waxna ka faa'iideyn bilaa micno u jira midda xigta wuxuu keenaa uu leeyahay internetka fasaad aad u badan hadda haddii aad u fiirsatid khaasatan bulshadeena Soomaalida in badan oo ka mid ah way jirtaa in wanaagsan laakiin in badan oo ka mid ah waxay u isticmaashaa dhinaca xun oo waxaa lagu faafinayaa wax dhaqanka iyo diinteena suuban labadoo ka fog tusaale ahaan hadda marka la soo dhigo wax wanaaga iyo wax xumaanta waxaad arkaysaa in intaas oo qof ay ka heshay oo wax loo yaqaan like siisay sheegaraysay daawatay dhinaca kale markaa fiiristo wanaagga midaas way ka yartahay dadka wanaagga yani dhinaca wanaagga dadka ku taxan aad bay u yiriin